maalin wanaagsan. waxaan rabaa inaan idiin bilaabo qisadii xuska iyo shirkadii kanadiyaanka ahayd ee uu soomaaliya u kaxeeyey. wuxuu leeyahay xuska waxa dhacday inay shirkad la igu soo xiro. waxaan horumarinaynaa dalxiiska Soomaaliya. waxay soo wataan maabkoodii dhulkii qorshahooda oo dhammaystiran bay wataan. goobta ay u socdaan oo leeyihiin waxaan ka hirgelinaynaa waxyaabahan waaweyn oo hoteeladan 5 starska ama kasiinooyinka ah baa waxay tahay gobolkan Sanaag. Soomaad arag baan u socnaa bay yiraahdeen. waxay soo bandhigeen budgetkooda wuxuu noqonayaa intuu soconayo hawsha oo dhan bay la yimaadeen. hawshii waan gudbiyey, Soomaaliyaan u gudbiyey. waxaa la yiri ha yimaada shirkadda, waqti baa nala siiyay time. markii baan baxay buu yiri anoo shirkaddii wada. shirkaddii markaan aan tagnay Muqdisho waana la kaxeeyey, hotel baana la geeyey. kadib waxaa naloo gudbiyey buu yiri inaan is aragno madaxdii waliba wasaaradihii ku shaqood lahaa. markii ugu dambeysay waxaa naloo gudbiyey madaxweynaha markaan u bandhignay oo la isla qaatay in shirkaddan dalxiiska waddanka loo ogolaanayo baa madaxweynuhu wuxuu soo istaagay qaabka ay u wada shaqaynayaan ama qaabka ay noqonayso qarashka lacagta. markii laga hadlayay maalgashiga wuxuu yiri annagu waxaan rabnaa waxyaga inaan waddanku dagaal buu ku jiraa, hub baan u rabnaa waxyaga. Soomaaliya wixii lacag noola siinayo in ay noqoto wax ku baxa ciidanka ama qalab military. marka shirkadihiinaan awood baad u leedihiin. wax walba aan gelayna waxay ku xiraanaysaa inaan ay noqoto wixii baxaya ay military ku baxaan moogta. shirkadda waxay tiri anoo shirkad ganacsi baan nahay, ma ahan shaqadayadu inaan arrimo military galno oo sidaas. wuxuu yiri annagu baahidayadaan tilmaamaynaa moogta. Soomaad arag marka idinku haddii baahidiinu ay noocaan tahay annaguna waa noocaas. marka sidii aan u wada shaqayn lahayn waxay ku xiran tahay in waxyaabaha baahidayada daboolaya ay noqoto. waddanku dagaal buu ku jiraa, Ethiopia kula jiraa. marka waa 82 xilliga uu hadlayo. marka waxaan rabaa inay noqoto hub ay noqoto wixii aan wax isku dhaafsanayna moogta. shirkadda waxay tiri muddahan la siiyo aan soo fakaraynaa moogta. way baxday. anna talyaaniga iyaga aan kusoo laabtay buu xuska leeyahay. dhowr bilood markay maqnaayeen bay ila soo xiriireen telephone. waxay yiraahdeen waan ku imaanaynaa. way ii yimaadeen. waxay yiraahdeen hawshii dawladuna ay rabtay waan soo dhamaystirnay, laakiin wax walba waxay ku xiran yihiin idinku sidii aad u fulisaan. waxaan yiri maxaad uga jeedaa? waxay yiraahdeen hubkii waan helay. waddankan ka helnayna waa waddanka Israa'iil weeye ama Yahuuda weeye. marka idinkaa la idinka rabaa sidii aad hubka meesha. waxaan ku yiri fariinta aan gudbiyay marka hore waayo xiriirka Soomaaliya taliya iyo Yahuud ma jirin xiriir. Soomaad arag dawladda Soomaaliya waxaan u gudbiyay yiri shirkadda inay la timid warbixinta noocaas. waxaa la yiri waxba nagama gelin, waxa noogu weyn anagu waa inaan hub helno moogta. Soomaad arag shirkaddii sidii baan u gudbiyay. waxaan ku yiri waxa noogu weyn waa sidaas. marka hadday hubka aad ka hesheen waddanka dee aan ka wada hadalno sidii aad hubka usoo gudbin lahaydeen lagu keeni lahaa waddanka aan u wada hadli lahayn. waxay yiraahdeen haddaba annagu markay halkaas joogto hubka shaqadayada maaha, laakiin waxaan soo diraynaa kambaniga aan hubka ka keenayno oo noocaasa moogta. Soomaad arag Yahuuddu ay leedahay ayagaa marka farsamada hubka iyo sidii waxaad rabtaan noocuu yahay sidii ayagaa fulinaya. marka nimankaasaad la dhiigaraysaan oo hubka qaabilsan oo kambaniga noocaasa waxba kama qabaan yiri. nimankii maalintii dambe waxay iigu yimaadeen talyaaniga. dawladdeydii baan u gudbiyay. waxa la yiri soo kaxee. caqabadu marka waxay tahay
baasaboorkooda laguma geli karo Soomaaliya lamana ogola diyaaradihii baxayena ma qaadi karaan waayo waxay ku jirtaa wadamada mamnuuca ka ah baasaboorka noocaas maba aqoonsano dowladda Soomaaliya baasaboorka marka nimankii si aan u kaxeeyo way adagtahay yiri moogta markaan aan u gudbiyay dowladdu waxay tiri warqad ogolaanshaha inay soo gali karaan baan siinaynaa diyaaradayadii Soomaaliya Airlines bayna soo raacayaan moogta Soomaaliya arag nimanka warqadaasan la iigu soo diray buu yiri diyaaradayadii Soomaaliya Airlines baa ku saaray airportka markay ka gudbayaan wax ay wataan male warqadaas ogolaanshaha kaliya baan wadanaa weliba dad gaar ah og buu yiri ma ahan macal diyaaradda waa la amray dadka inay soo qaadaan maahan wax ma aragtay la og yahay ma ahan buu yiri adigu waxaan sameeyay buu yiri markaan wadankii galnay hore waxaan nala ku geeyay madaxweynaha nimankii waa wada nimankan marka aan wado waa quburo buu yiri oo yuhuuda moogta markaan meeshii galnay waxay yiraahdeen buu yiri waxay la soo baxeen see wax u rabtaan siyaad baro wuxuu yiri waxaan rabnaa anagu wuxuu la tashaday dowladdiisii hubka ay rabaan iyo waxa ay rabaan oo dhan miiska u saaran buu yiri marka ay yiraahdeen bay waxay soo saareen buu yiri fiir waxay la yimaadeen buu yiri Soomaaliya waxay hub haysato Soomaad arag ayagoo u qoran tuulay madaxweynuhu intuu sida ii fiirshiyo war ma maqlaysa af Soomaali buu igu yiri war ma maqlaysa wax walba ogi buu igu soo jeesto igu yiri markaas ay waa u jeedaa waxay sheegayaan buu yiri hubkana soo galay dowladda Soomaaliya hubkii soo galay oo ay haysatay dhammaan baaliskeeda ay wadataa bay wataan buu nimankan meesha keenay madaxweynuhu fajac bay ku noqotay aduu hubkii baa laga wada hadlay hubkii markay dhamaaday bay yiraahdeen su'aal baan qabnaa madaxweyne wuxuu yiri waa maxay waxay yiraahdeen waxa kugu weyn oo dhibaatada ah oo ku haysa oo hubkan iyo dagaalkan miyaan xal laga gaari karin idinkoona dagaalamin moogta xoog ya markaasuu yiri waan jeclaan lahayn hadii xal laga gaaro laakiin Itoobiya dhul iyo dad Soomaaliyeed bay haysataa diyaarna uma ahan inay xal gaarto moogta markaas waxay yiraahdeen haddaan anagu galna ka warnawsha adigoona dhigna ka daadan dagaalamin madaxweynuhu wuxuu yiri see ku gali kartaa waxaan ku gali karnaa bay yiraahdeen dadka gobolka degan baan waxaan marsiinaynaa qaramadii midoobay dowladaha reer galbeedka ka soo dhaadhicinaynaa in dadka cod loo qaado Soomaad arag gobolka la isku haystay in dadka cod loo qaado dadku hadday doortaan gobolkiina iyo dhulkiina ay ku soo beeri karaan moogta wuxuu yiri yaa heli kara hadday sidaa jirto maxaan ku diidaynaa markuu odagii madaxweynuhu yiri waxba kama qabna hadalkaas bay yiraahdeen laakiin hal condition baa ku xiran siir waa maxay waxay yiraahdeen annagu waad ogtahay haddeertan markaan soo soconay wadankaaga sharci darran ku nimid wax warqado aan haysano male xiriir naga dhaxeeya male horta waan kuu soo sheeka dhaafay hubka markii ay sheegayaan waxay yiraahdeen dekada caqaba la yiraahdo oo Urdun leedahay baan hubka dhigaynaa aad ka qaadanaysaa Soomaaliya dekada caqaba la yiraahdo badda cas ku taalo oo Jordan leedahay baad ka qaadanaysaa buu yiri hubka markii laga wada hadlayay halkaas ay keenaynaa marka wuxuu yiri annaga soo qaadanayna halka hada keentaan marka la isku soo laabtay yiraahdeen hal arrin baa dhibaato oo meesha taala inaan hawsha fulino idinkeena idinku xirantay madaxweynuhu wuxuu yiri waa maxay waxay yiraahdeen waad ogtahay wax xiriir oo naga dhaxeeya male wax mana aqoonsanid sharci daran hadda wadanka ku joognaa Soomaaliya si aan uga gudubno albaabka hawshii aad leedihiin aan u fulino waa in aad samaysaan hal arrin waa ogtahay jaamacadda carabta ka tirsantiin wadanka kaliya oo aqoonsada waa Masar wana haybi haddaba waxaan noqotaa wadanka labaad oo aqoonsada kowle haddii aad conditionka fulisaan dhulkaana annaga idin soo celinay maxaan ku soo celinaynaa inaan cod ku qaadno sidaan niraahdo siyaad bar markii hadalka afkooda ka soo baxay wuxuu yiri wax ma idin sheegaha annagu noqon mayno wadanka labaad oo idin aqoonsada Soomaaliya waxaan qadiyadan dhulkan hadda u doodayo Soomaalida
iyo kaas waa isku mid buy sabab waana qadiyad aan aaminsannahay inay dadkaasi xuquuqdooda helaan sida kuwa halkan jooga ay u helaan ilaa ay dadkaasi xuquuq helinna waxaan ka gorgortamayna maaha waxay yidhahdeen madaxweynewna dhegeyso dhowr wadan oo carabta ah baan hadda gorgortan kula jirnaa sidaadoo kale marka haddii kuwaasi maantana aqoonsadaan berri kuma baahnin dhiilkan aan ka wada hadlaynana miiska saarnaan mahayo soomaad arag hadday 2 3 4 wadan oo kalena aqoonsadaan markaasuu yidhi haddii madaxweynuhu wuxuu yidhi haddii 2 4 3 kale idin aqoonsadaan oo jaamacadda carabta ka tirsan kan shanaad ama lixaad baan noqonaya markaasay yidhaahdeen taas qorshahan aad ka hadlaysid mid gacan siinaysa ma ahan madaxweynuhu wuxuu yidhi hawsha naga dhiga nagu soo celiya hawshii aan ka wada hadlaynay diyaar ma u tihiin shaqadii aan idinku hubbaad noogu timaadeen shirkadii meesha maraysay iyo shaqadeedana inay qabsato annaguna aan waxyaga helno qadiyadan codaynta iyo qadiyadaad meesha tanoo dhan miiska ka saaru yiri waxay yidhaahdeen haddayba sidaas tahay marka annaguna dib baan iskugu laabanaynaa waa inaan shirkadii aan la kulanno aan u sheegno qaabka aan ku heshiinay oo ah inaan hubka halkaa geenayna dekada caqaba aad ka qaadanaysaan wixii kaloo dheeraad ah waxaa fulinaysa laakiin nasiiya warqadii hubka aad rabteen warqadii baa la siiyey sidii baa nimankii kusoo kaxeeyey madaxweynuhu uga soo tagnay asagoo yaaban oo waxyaabaha la yaabay waxa ugu weynaa buu inay hubka wadanka iyaga soo galay liiskiisii oo dhan ay haystaan buu markaan soo laabanay ayagoo madaxa lulahayay bay waxay yidhaahdeen madaxweynuhu waxay ahayd inuu nagala hadlo waxa muhiimka ah moogta waa ujeednaa qatar baan ku sugantiin qatar baan ku sugan wixii bay daldaleen buu adigu markaan kusoo laabanay talaada markaan kusoo laabtay shirkadii oo aan hawsha lahayd dalxiiska waxay yidhaahdeen bil kadib 2 bilood kadib bay warbixin isoo direen ay leeyihiin hawsha waan ka baxay waxay u socdeen oo dhan mashruuca dhan wuxuu ahaa buu yiri marka toos in lagula hadlo madaxweynaha fariintaasna la gaarsiiyo oo gorgortan oo ah maaragtay ya heshiiskii iyo qorshihii ganacsiguna markuu madaxweynuhu ka saaray wax aqoonsi ah iyo wax maaragtay wada hadala oo dhinaca yuhuud ah uu yiri qadiyad aan aaminsannahay weeye hawsha halkaas ay ku joogsato nimankiina sidii bay uga baxeen hawshii dhilkiina halkaas ku burburay marka waa 10 aad ka dhaxli kadib mar ma garanaysaa qadiyadda mar waxaad ka arkaysaa sida la iskugu soo loo soconayo mashruucyada ganacsiga waxyaabaha marka laga hadlayo haddana howlahan kale oo Soomaaliya gorgortanka oo qofka la baayacaya ay ku jirto mar waxa ka arday shaatiyada la qabaad ka baran ka dhahda hadii aad qof wax tara tahay waana mid ka mid ah casharada dhacay oo taariikhiga ah maanta dad waxa laga yaabaa inaysan in badan u arag laakiin waxa jira maanta markaad fiirisid waa waxa jira weyn aad baan ugu mahadcelinayaa xuska inuu ila wadaagay dhacdada taariikhiga iyo kuwa kale oo ka qiimo badan ba marka dib baan ka soo sheegi doonaa hadii la yiraahdo waa inaad la socotaan mac salaam